kulan iyo ismaqal wanaagsan saaxiibayaal meel walba joogtaan waa galabnimo talaada taariikhduna ay ku aastaysan tahay 16 bisha 3 2022 waxaad ku soo dhawaataan warka galab ee sirta media haddii aan ku bilaabo madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay abaabul ka dhan ah filas Soomaaliya waxayna shirarkaasi ay ka dhacayaan xindaabka xarunta xalane oo si weyn loo ilaaliyo maankeeda madaxweyne Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay diiday inay gudaha u soo galaan magaalada Muqdisho waxayna cabsi amni darteeda u degan xarunta xalane oo amnigeeda ay sugaan ciidamada midowga Afrika AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya khilaaf culus ayaa soo kala dhaxgalay madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland oo isku dhinaca iyo madaxweynaha waqtigiisu ilaaday filas Soomaaliya ku naaloonaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna isku fahmi laayeen qodobo qaar oo quseeya arrimaha doorashooyinka dalka labadan hogaamiye oo saaxiibo dhow ah ayaa kulamo xasaasi ah ka wada magaalada Muqdisho waxayna kulamadaasi la yeelanayaan saamileyda siyaasadda gaar ahaan midowga musharaxiinta mucaaradka dalka oo xilligani aad uga soo horjeeda siyaasadda guracan ee madaxweynaha filas Soomaaliya ku naaloonaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigiisu ilaaday xogta sirta media ka heshay shirarkaasi ka dhacay xarunta ay ka degan yihiin xalane madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegaya inay isla garteen dhismaha guddi u qaabilsan arrimaha doorashada iyo go'aanada la qaadanayo guddigan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland Jubaland iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa isla gorfeynaya mowqifka ay ka qaadanayaan wada hadalka ay beesha caalamka ka dhax wada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada isbahaysigan siyaasadeed ee ka kooban Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe iyo midowga musharaxiinta ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshaha doorasho oo wato madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo taageero ka haysta madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle sidoo kale hogaamiyaashan ayaa la kulmaya ururada bulshada rayidka iyo xubno ka socda beesha caalamka iyagoo kala hadlaya arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirka lagu wado inuu magaalada Muqdisho ka furmo balse filas Soomaaliya ka cagajiidaysa inuu ka dhaco xarunta xalane maadaama taasi ay u aragto mid sumcadeeda dhaawacaysa kulamada ayaa intooda badan diiradda lagu saaraya xal u helidda khilaafka jira in Soomaaliya hal miis la isugu wada keeno si ay u wada hadasho madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xamar u yimid shir ay garwadeen ka tahay beesha caalamka kaasoo ka dhacaya teendada afisioni ee magaalada Muqdisho balse filas Soomaaliya ay ka cagajiidayso gabi ahaanba shirkaasi beesha caalamka ayaa waawaan ka dhaxwada madaxda Soomaalida waxaana wali lagu guuleysan sida loo qabanayo shirka wada tashiga ee Muqdisho lagu wada inuu ka furmo madaxweynaha maamulka Galmudug ee filas Soomaaliya taabacsan Axmed Cabdi Kari Qorqor ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo ka soo laabtay safar ugu maqnaa dalka Turkiga Qorqor ayaa garoonka diyaaradaha dircadda ee magaalada Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya soo dhaweyntaas oo ahayd mid dowlad-tus ah isla markaana lagu niyad jabinayo hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana xindaabka garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho degan kuwaas oo ka cabsi qaba filas Soomaaliya in naftooda ay waxyeeleyso ila ku dhow madaxtooyada Galmudug ayaa sirta media u sheegay in Qorqor uu ku biiri doono kulamada siyaasadeed ee ka soconaya magaalada Muqdisho isla markaana looga arinsanayo doorashooyinka dalka wararka qaar ayaa sheegay in Qorqor shirar gaar ah ula qaadan doono madaxda ugu sareysa filas Soomaaliya iyagoo ka wada hadli doona xaaladda dalka Galmudug ayaa kamid ah maamulada taabacsan madaxweynaha waqtigiisu ilaaday filas Soomaaliya ku naaloonaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba socdaalka Qorqor ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli caasimadda ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo Hirshabelle isla markaana la filayo inuu furmo shirka wada tashiga doorashooyinka oo ka dhacaya teendada afisioni ee magaalada Muqdisho xilli cagajiid xoogan uu jiro isla markaana laga cabsi qabo in gabi ahaanba shirkaasi fashil xoogan uu ku imaado qabaha dhexe warka galab ee sirta media ayaa daawanaysa markan hadii aynu eegno wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in qarax nooca miinada ah uu ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo kaas oo faahfaahin dheeraad ay ka soo baxayaan qaraxan oo jugtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha Gaalkacyo ayaa waxa lagu soo waramayaa in la egtay sargaal ka tirsan laanta dambi baarista Puntland ee CID-da sargaalka qarax la egtay ayaa waxa lagu magacaabaa Warsame Yuusuf Axmed kaas oo la dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in warsameeyay qarax la beegsaday xilli uu marayay bartamaha waqooyiga Gaalkacyo inkastoo uu ka badbaaday weerarkaasi la eegtay sidoo kale wuxuu burbur xoogan uu soo gaaray gaarigii uu la socday sargaalkan la dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyadoo goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano ka sameeyay halkaasi ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee maamulka Puntland ku aadan qaraxaasi miino mudooyinkii dambe deegaanada maamulka Puntland ayaa waxa ka dhacay falal liddi kuwa ammaanka sida qaraxyo weeraro
oo ugu dambeeyay kii lagu qaaday xabsiga Boosaaso. Dowladda Kenya ayaa qaadaysa tallaabo kale oo ay ku doonayso inay ku carqaladayso kiiska dacwadda badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. Sida ay qortay warbaahinta Kenya, dowladda Kenya ayaa go'aansatay in dacwadda badda ee taala maxkamadda ICJ ay geyso Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyadoo ku doodaysa in maxkamadda aysan dhexdhexaad ka ahayn kiiskan iyo in kiiskaasi halis ku yahay amniga dunida iyo xoogaysiga ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama bariga iyo bartamaha Afrika. Ujeedka Kenya ay markan dacwadda ugu wareejinaysa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa in la sii dheereeyo dacwadda iyo saameyn ay ku yeelato carqalad ay geliso dacwadda oo ay u aragtay inaysan haysan caddeyn ku filan. Waxaa kaloo loo filayaa in Kenya ay ku dhawaaqday in gebi ahaanbay ka baxday dacwadda ka socota maxkamadda ICJ oo shalay dhageysiga dacwadda ay ka bilaabatay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Kenya ayaa xilligan ka mid ah dalalka aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ay Afrika ku matasho, taasoo ay uga faa'iideysanayso dacwadda kala dhaxaysa Soomaaliya. Guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warka Sirta Media. Haddii aad daawaday channelkan ku cusub tahay, subscribe sar si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran xogaha warbixinada iyo faalooyinkan soo gudbino. markan haddii aynu eegno wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, agaasimayaal iyo saraakiil kale ayaa Sirta Media u xaqiijiyay in dowladda federaalka Soomaaliya laga joojiyay lacago kab ah oo ay ka heli jirtay hay'ado caalami ah iyo dowladda taageera miisaaniyadda dowladda Soomaaliya. Mas'uuliyiintan ayaa Sirta Media u sheegay in arrintan ay ka dambayso khilaafyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo qabsoomid la'aanta doorashada. Sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa sheegay in arrintan ay ka dambaysay kadib cabashooyin badan oo ay gudbiyeen mucaaradka iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dalka. Bangiga Adduunka, Midowga Yurub iyo dowladda ay ku jirto dowladda Sacuudiga ayaa joojiyay lacagtii ay ku kaabi jireen dowladda Soomaaliya, waxaana sababta lagu sheegay in mudaxileedka madaxda dowladda uu dhammaaday, muranka siyaasadeed iyo ku takrifalka awoodeed oo ay ku dhaqmayso dowladda Soomaaliyana ay sabab u tahay in la joojiyo gabi ahaanba lacagtii lagu kabi jiray dowladda federaalka Soomaaliya si sare ay ugu kacdo miisaaniyadda dalka. Waxaa sidoo kale jirta cabsi xoogan oo ku aadan in Soomaaliya isku rogtay nidaam keligii talis ah. Dowladda Sacuudiga ayaa horey sidaan oo kale u joojisay miisaaniyad 10 milyan ah oo ay siin jirtay dowladda Soomaaliya markii uu socday godoomintii Qatar, hase yeeshee waxay dib u soo celisay markii uu hagaagay xiriirkii Soomaaliya iyo Sacuudiga, iyadoo lacagtaasi ka dhigtay 5 milyan oo dollar halkii hore ay ka ahayd 10 milyan oo dollar. Warar ay heshay Sirta Media ayaa sheegay in maamul goboleedyada qaar iyo mucaaradka ay warqado u direen dhammaan dalalka taageera Soomaaliya, kuwaas oo ay ku dalbanayaan inaysan dhiirigelin xukun ay ku sheegeen keligiis talis, caburin dadweyne iyo hantidooda oo loo isticmaalo ololo gaar ah maadaama uu dhammaaday mudaxileedkii hogaanka dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Adigoo weerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media. Adigo weelka ruma Sirta Media.